waxaan ka xasuustaa bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed maxay shirkaasi horta wuxuu lahaa qayladhaan buu lahaayo qayladhaantaasi waxay ku saabsanayd maxay madaxweynaha soomaali meel kastoy joogto buu ugu tegay kuwa carabta jooga kuwa yurubta jooga kuwa maraykanka jooga wixii soomaali dibad joogto dhan buu iyo wixii gudaha joogo dhan buu qayladhaan u sameeyey markaasi soomaalidiina way ka soo jawaabtay waxaa jiray shirar hordhaca oo lagu qabanayay baaladii beebelka shirarkaaba ka horreeyay shirkii carta shirarka kadibna waxaa la sameeyey inaa carta lagu qabto shirkii cartaa lagu qabtee madaxweynuhu wuxuu yidhi maxay ahayday wax walba dhaba ree Jabuuti baa isxil saaray yaa gaar ahaan ree carta waxay ka ciyaareen rool cajiiba roolkaasoo ahaa inay guryahoogii oo dhanba uga baxeen oo soomaalidii ay gashay yaa gashay maxay ahaydee annaku waxaan hayn raggii duubayay halkaas kamaramanintii duubaysa markaa waa la badnaatay keligii maahayn waqti dheer buu qaatoo sanad yuu socday bay ahayd shirkaas waxaa lagu soo doortay madaxweynaha lagu soo doortay cabdiqaasim baa la doortay shirkaasi waxaa garab socday maxay ahayd barnaamijyaal gaar ah kuwa culmo laga qabto sheekhayaal aan ka qabanno kuwa maxay ahayd aan ka qabanno maxay ahayd fanaaniintii maxay ahayd kuwa kale oo aqoonyahanka laga samaynayo wiilashay samaynayeen maxamed daahir iyo cumar cali iyo yaa baa ayaa garab socday bay ahayd marka lama soo koobi karay haddaan idhaanadii maanta halkan ma ku soo koobayna taariikhdii waqtigaas lagama sheekayn kareen wax toos barnaamij toos u baxa ama idaacada af soomaaliya oo toos u baxday idaacaddii horeysay Jabuuti yay ahayd idaacadda satellite ku baxda idaacaddii ugu horreysay afka soomaaliga ku baxda waxay ahayd carta toos yaa la sameeyey bay ahayd soomaali meel kastoo joogto bay daawanaysay markaa sidaa darteed waxaa shirkaasi si fiican buu dhacay ree cartana abaalmarintii way heleen oo shaqadii fiican ay qabteen way heleenoo abaalmarin waxaa looga dhigay gobolka carta ayaa laga dhigay gobol ma ahayn markii hore markaa iminka waa district carta ayaa laga dhigay kadib madaxweynuhu abaalmarin u sameeyey wuxuu ku abaalmariyey inaa maxay ahayd district laga dhigo dadka reer Jabuutina qayb weyn bay ka qaateen ku geel keena ku loo keena ku ari keena ku lacag keena nin walba karaankiisii u ciyaarayay kii maxay wax keeni waayna shaqo meesha ka ahayd dadkan baa loo khidmaynayay mid kastiba uu khidmaynayay qof kaste oo Soomaaliya qof baa la joogay oo reer Jabuuti oo hadhicin hajabin shofeer baan ahay askari baan ahay ilaaladooda waxqabadkooda wax walba diyaar baa lala ahaa wixii meeshan maanta yimiday maalintaasi iyo koob faraxsan bay naga tageen Soomaalidu so waxay ku saabsanaayeen dhiirigelina fanaaniintii kuwii Soomaalida ka qayb galay kuwii Jabuuti oo kala hadhin baa ka qayb galay waxaa ka qayb galay deegaan baa rool cajiiba ka ciyaartay bay ahayd kaad maaris waxay gacan macaan looma kala hadhintii fanaaniin Jabuuti marka la yiraahdo cid u kala hadhay ma jirin waa fikrad fiican inaa halkaa taalo laga sameeyo ama meel arshiif lagu maxay ahayd lagu ilaaliyo taariikhda dhalinyartana waxaan odhan lahaa maxay ahayd taariikhda inay dib u raacaanoo ay waxaan wax qoraaloo ay jirtay wuxuu ilama waxaan taariikhdu isqoraysaa waa inaad taariikh qoran halkaabay ugu tegayaan wax walba oo wixii waa la xafiday ka dhigan tahay arshiif bay jiray arshiifkiina wuxuu yaalaa idaacadda Jabuuti u yaalaa waxalle wixii la duubay iyo wixii la qabto dhan ba waxqabadkii madaxweynuhu halkaa uu ka muuqdaa waa la arki doonaa waxaan raacinayaa in yaroo dhextaal ah oo Soomaalida ay kalgacalka inoo hayaan kamid ah Cumar baa tignow markan la yiraahdo Ismaaciil Cumar
magaciisu wuxuu ka weynaaday magacii Jabuuti saaba nolol sare u qaaday intaan joognay dhulkana lama dhiginba maxamed daahir baa nala socdo maxamed carta bay odhanayeen marka waa nolol sare u qaaday meel baa marnay meesha waxa la yidhaha buur xakama waa askari iyo ciidan baa joogo meesha rasaas fasti jinka u daadanaysa meeshii baan mari kari weynay waxaan ka yidhi maxamed halkaa ma tegi aduu markaa maxamed daahiro ku yidhaahdo hoo wuu niga dhoo gaadhigii ka soo dhaadhac qoladan rasaasta isla dhacaysa iyaga kugu soo yaacaye sidii baan sameeyey maxamed daahiro yidhi maxamed daahiro markaa yidhi de maxaa yeelay wixii meelahan joogo dhan baa iyaa aniga codkayga maqleen xoog baan lagu qaylaya ama rasaastii baa la joojiyey de ninkii waa lagu soo yaacay de wallaahi waa kii carta wallaahi maxamed carta weeyaan waa ninkii Jabuuti waa lagu soo walaacay saaba loogu dhegdhegay raggii qoryaha sitees aayay baa dhinac kasta ka soo yaaco ninkii baa lagu dhegdhegay lagu dhegdhegay waxa la yidhi ma ninka gaadhiyada wata haa gaadhiyada anakaa wata ooda ka qaada baana la yidhi waana sii daayay waa marnayba marka taariikhda Soomaalidu waxay noo hayaan maxay ahayd wanaag badan bay noo hayaan maadaama dawladdiina maanta hirgashay ay dee waa taa wadankii Soomaaliya degay dadkii iska barwaaqada ku jiraan de maanta alxamdulilah maalin ay ka fiican yihiin ma jirto wadanka haddaad tegtiin unbaa garan kara ninkii tegay unbaa wax ka sheegi kara dee xamar waxaan nahay shaqaalaha idaacadda Jamhuuriyadda Jabuuti waqtigaana waxaan ka ahaa kameramaan barnaamijyaal baan sameynaynay ku culimmadan ka samayno kuwa aqoonyahankan ka samayno waxyaabo badan oo dee dhiirigelina anigoo hadalkayga kusoo gabagabaynaya ama kusoo gunaanadaya maxay ahayday inaad dadaalkii madaxweynuhu u galay shirkii carta markaasi maanta ay midhaheygii ka soo baxday meel masxaf laga dhisay masxafkaayoo taariikhdii Soomaalida maalinta waqtigaasi laga qoray ama laga duubay wixii oo dhan laga helayo la dhisay oo maxay ahayd waqti dhowna la furi doonaa hadduu alla yidhaahdo maxay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan balyeynaa waxaan leenahay madaxweyne taariikhdaad gashay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.